socdaal la saanqaad xoogan waxay saantani midaysay wasiiradda ciyaaraha dalka Khadija Maxamed Diriye oo uu weheliyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo xubno ka tirsan xiriirka kubadda cagta. Waa socod isugu jira dhagax dhig xarumo hor leh oo anfacaya kubadda cagta iyo booqashada xarumihii isxilqaanka lagu dhisay ee tuulada ciyaaraha dalka. halkan waa garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho oo ay rusheynayaan tubooyin biyo ihi oo lagu rakibay cawska hoostiisa si uusan cawsku u abaarsan. Wasiirka wasaaradda ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadija Maxamed Diriye ayaa ka hadashay dhagax dhig ay ka sameeyeen iyadii wasiirka wasaaradda warfaafinta waxayna wasiiradu ka sheekaysay dhismayaasha lagu soo kordhiyay garoonka Stadium Muqdisho iyo wax ay kala yihiin. maanta waxaan u taaganahay sida aad ku aragtaan boorkan munaasabad dhagax dhigis oo ah mashruuc horumarineed oo lagu horumarinayo isboortiga Soomaaliyeed anigoo ku hadlaaya magaca Olombikada iyo gaar ahaan maanta xiriirka gaarka u leh munaasabadan mudana gudoomiye waxaan ka duuleynay wasaaraddu ay hormuud u tahay sida faritaanka ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ah in wasaaraduhu ay si isxilqaan iyo isku tashi ah ay u dhistaan xarumahooda. wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyadoo taas ka duuleysa waxay bilowday maanta in uu mashruucan furo u noqdo in aan dhisanayno xarumaheena. mashruucan saddexda waji iskugu jira waa headquarterkii ama xaruntii dhexe ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo sida naqshadaasi ka muuqato dhinacan naqshada ka muuqata headquarterka oo uu yahayna waa kan. halkanina waa laba garoon oo waxay leeyihiin kubadda cagta ay ku sii qaataan tababarada ama almiintada. waa kan halkaasna waa hoteelkii caanka ahaa ee Stadium Muqdisho. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ku tilmaamay xarumaha cusub ee laga dhagax dhigay garoonka ciyaaraha Muqdisho tilaabo horsocod leh. waxaanu la dabaaldegaynaa wasaaradda isboortiga iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo runtii sida wasiiradu sheegtay annaka dawladda nabad iyo nolol ay hogaamiyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxaa naga go'an sanadkayagii afraad annakoo galnay inaanu dadka Soomaaliyeed tusno waxqabadka dawladda intii ugu badnay. waxaanu doonaynaa inaanu dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 73% iyo ka badan shacabka Soomaaliyeed inaanu tusno inay soo noqotay sharafkoodii dawladnimadoodii xarumahoodii kuwii gaarka u lahaa inay ku ciyaari jireen iyo sharafkii dawladnimada Soomaaliyeed inuu soo noqday qabkii Soomaaligu inuu soo noqday guda iyo dibad maanta dawlad fiican oo rajo leh ayaa jirta. garoonka kubadda cagta ee Muqdisho isbedel weyn laga dareemay dhanka bilicdiisa ayaa waxaa durbaba soo dhaweeyay bahda ciyaaraha. Xasan Yabarow Wiish oo ah gudoomiyaha isboortiska gobolka Banaadir ayaa guul ku tilmaamay dib u howlgelinta Stadium Muqdisho iyo sida baahida weyn loogu qabo xilligan inuu dib u howl galo. dabcan garoonkan waxaan marka hore ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu qaadir ah ka sokoona dawladda Soomaaliyeed iyo wasaaradda dhalinyarada isboortiga hogaaminaysa wasiirada dhalinyarada isboortiga iyo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo maamulka gobolka Banaadir in si guud loo wada shaqeeyay in maanta bilicda ka muuqatana ay saan noqotaan aad ugu faraxsanahay. muhiimad weyn ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba caalamka joogto gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir. waxaan isleeyahay garoonkan waa garoonka kaliya ku faanaan ummadda Soomaaliyeed waana garoonka tuuladii isboortiga loo yaqiinay Stadium Muqdisho. hadaa labo ama saddex ka iraahdo muhiimooyinka ay leeyihiin waxa ugu weyn tan arrimaha qaramada ciyaaraha qaramada oo aan mar walba 30 sano ugu dambeysay Soomaaliya fursad u helin in gurigeeda ku ciyaarto markay away tahayna away ku ciyaarto markay home tahayna away ku ciyaarto fursadaas ayaan imaan doonta doo Ilaahay raah. kororka garoomada la dhigay rooga cagaaran ee macmalka ayaa noqonaya mid bilicda caasimadda wax ku dara waxaana Stadium Muqdisho haatan noqonaya mid dhawaan qaabili doona taageerayaal baaxad leh iyo tartamo aan hakad lahayn.